wasiirka wasaaradda warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo ay ugu diyaar garoobayeen xisbiga kulmiye ololaha doorashooyinka ee golaha deegaanka ee dhawaan ka qabsoomi doona dalka Soomaaliland waxa kale oo munaasabadaasi lagu shaacinayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolkan Awdal oo loo magacaabay Muuse Carab Dugsiye halka gudoomiyaha degmada ee xisbiga kulmiyana loo magacaabay Abdi Suldaan Kadiye waxaana munaasabadaasi ka qayb galay 22 xubnood ee musharaxiinta golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye iyo taageerayaal kala duwan oo xisbiga kulmiye ah waxaana munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci waxaan idinku guubaabinayaa inaad u horseedaan nidaam wanaagsan oo lagu tartamo oo aad kula tartantaan xisbiyada ururada iyo xisbiyada kale ee dalka inaad tusaan inay ku tartamaysaan si daacada oo cadaab leh oo akhlaaqad leh oo aan nabadgelyada waxba u dhimayn sidoo kale waxa munaasabada ka hadashay gudoomiyaha ururka Naaw ee gobolka Awdal Koosar Ibrahim Rijaal dhammaanba waxaan ilaahay idinka rajaynayaa si farxad leh oo sharaf leh oo qiimo leh inaan dadkeena u garab joogsano una soo saarno hay'aduna halkaas ka hadashay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Hibo Maxamed Cismaan waxayna sheegtay in gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Boorama loo magacaabay Safiya Abdi Nuur sidoo kale maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabila ayaa musharaxiinta kula dardaarmay waxa la inaga baahan yahay hadal xalaala oo xor ah oo aad kula tartantaan xisbiyada waxa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xamed Jibriil حزب الكلية قليل الدجاجة وحزب كليهاتا جمهورية الصوماليلاند قليل الدجاجة مشاركين في كثير من الدجاجة يكونوا لبضي كلية لبضي وهرقوا قبي أو النقطة مالتا مدحوين كلية جمهورية الصوماليلاند ومدير عبد الرحمن عبد الله إسماعيل وكسب بنابي مشرح قليل الدجاجة لأن قبل كاوضاعات سمدوا صوتين وتضيب بلنكاسة حزب الكلية هي حكومتيسو ودكتي مانتي عندنا كسو قادني ويشبع لو باري مريسو انت كان لا فوق ما يشوف دولتينا يلاado waxaad ka war haysaan waxbarashadii gobolka ee macallimiin lahayd ee iskuulada xubin jireen inaad maanta ka wada qabeesheen waxaad ka war haysaan in caafimaadkii gobolka laga qabtay isagana oo si milyan hooba loo daba socdo waa caafi shabakada wararka ee magaalada Boorama